Assalaamu calaykum asxaabta meel kastoo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada channelkeena galka ciyaaraha dunida. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan ciyaaraha waxaa ka mid ah Antonio Rudiger oo door weyn ka ciyaaray in Chelsea ay ku garaacdo saxiixa Timo Werner kooxda kubadda cagta Liverpool kadib heshiiska Werner iyo Ziyad waatan shaxda uu ku soo shirtagi doono xil ciyaareedka dambe. Tababare Lampard oo ku cabsi gelin doona kooxaha Premier League taariikhda iyo waqtiga la ciyaari doono kulamada Premier League bisha June iyo July oo la shaaciyay xidiga Diego Costa oo 6 bilood oo xabsi ah oo garka loo geliyay iyo kooxda kubadda cagta Schalke 04 oo arrin weyn oo weli kubadda cagta loogu arag ay ka dalbatay halyeegii hore ee Real Madrid Raul Gonzalez. Wararka suuqa kala iibsiga maanta in kuwa haynan waxaa ka mid ah Manchester United oo dalab rasmi ah ka gudbisay Khalidou Koulibaly iyo jawaabta ay ka bixisay Napoli. Chelsea oo dalab rasmi ah ka gudbisay bartilmaameedka Manchester United iyo Liverpool Jadon Sancho. Cristiano Ronaldo oo loo doortay weeraryahankii ugu wanaagsanaa qaaradda Yurub 20kii sano ee lasoo dhaafay iyo xidiga waaweyn uu ku garaacay. Kusoo dhawaada mar kale channelkeena galka ciyaaraha qodobadaas oo faahfaahsan. Asxaabta kusoo dhawaada qodobadii oo faahfaahsan. Antonio Rudiger ayaa lagu waramayaa inuu door muhiim ah ka ciyaaray heshiiskii ay Chelsea ku garaacday kooxda kubadda cagta Liverpool ee saxiixa xidiga RB Leipzig ee Timo Werner sida ay qortay jariirada Daily Mail. Kooxda reer London ayaa ugu cadcadeed inay soo xirgeliso weeraryahanka sida weyn loogu doondoonayay ee Timo Werner kadib markii ay u soo bandhigtay qandaraas dhan 200,000 oo geni inuu isbuucii qaadan doono. Liverpool ayaa lagu waramayaa in ay ku horeysay saxiixa xidiga Jarmalka xil ciyaareedkii hore halka Manchester United-na ay fiirinayso xidiga xaaladiisa. Laakiin marka la eego xaaladda uu dhaliyay cudurka coronavirus, midkoodna labada kooxood ma doonaynin inay bixiyaan lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa xidiga Timo Werner oo dhan 50 milyan oo geni. Chelsea waxay haysataa lacag ay qarash gareyso, sidoo kale waxay haysataa hubka qarsoon ee ah daafaca Jarmalka ee Rudiger. Isaga iyo Werner waxay isku garanayeen waqtigii ay wada joogeen kooxda kubadda cagta Stuttgart halka ay sidoo kale wada joogeen xulka qaranka Jarmalka. Rudiger ayaa xiriir la sameeyay saaxiibkiisa xulka Jarmalka isagoo ka dhaadhiciyay inuu aqbalo dalabka kooxda Chelsea sida ay sheegtay jariirada Jarmalka ee Bild. Wararka ayaa intaas ku daraya Rudiger ayaa lagu waramayaa inuu xayeysiin u sameeyay nolosha galbeedka London isagoo ka caawiyay weeraryahanka inuu ka dhaadhiciyo inuu ku soo wareego kooxda kubadda cagta Chelsea. Jariirada kale ee Melto ayaa sheegaysa in Chelsea ay faa'iido kale ka haystay Liverpool maadaama Werner uu aaminsan yahay inuu fursad fiican u haysto inuu boos joogto ah ka heli karo kooxda Frank Lampard marka loo eego kooxda Jurgen Klopp. Markana Spain, xidiga weyn ee Diego Costa oo 6 bilood xabsi ah oo garka loo geliyay. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid iyo xulka qaranka Spain Diego Costa ayaa la soo sheegayaa in garka loo geliyay 6 bilood oo xabsi ah kadib markii arrimo kiisas canshuur lunsi ah oo ay ku haystaan waaxda canshuuraha ee dalka Spain. Sida uu sheegayo wargeyska Spain ka soo baxa ee El Mundo, Diego Costa ayaa galay dambi canshuureed isla markaana uu lunsaday lacag gaaraysa 1.1 milyan oo euro. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu lacag ka badan 900,000 oo pound ka musuqmaasuqay qaranka Spain kadib markii uusan shaacin in uu qaatay lacag dhan 5.15 milyan oo euro sanadkii 2014 markii uu u dhaqaaqay dhinaca iyo Chelsea. Wakaaladda waaxda canshuuraha ee Spain ayaa si toos ah Diego ugu eedeeyay inuu galay dambi isla markaana lacagtani ay tahay mid la xiriidha xuquuqda sawiradiisa. Sidoo kale waaxdaas ayaa Costa ku eedeysay dambi kale ka hor inta aan dambigaasi laga dhaafin isla markaana lagu xukumin xabsiga 6 bilood ah. Qaabka uu Diego ugu falcelin doono xukunka iyo waxa uu yeelayo ayaa ah in uu bixin doono lacag dhan 36,000 oo euro si uu uga hortago inuu wax xabsi ah u galo. Costa ayaa kooxdiisa Atletico Madrid weydiisay inay lacagtaasi ka bixiyaan, balse Rayo Blancos ayaa ku gacan seeday iyadoo dhinaca kale u sameysay wanaag in ay mushaaraadkiisa u qadimaan si uu lacagahaasi iskaga bixiyo. Markana Premier League waqtiga la ciyaari doono
kooxaha ugu horeeya ee ciyaari doona waxaa ka mid ah Aston Villa iyo Sheffield United ayaa si rasmi ah dib loogu bilaabi doonaa xilli ciyaareedkan 17 bishan June. Waxaa sidoo kale habeenkii ciyaari doona kooxaha Manchester City iyo Arsenal, iyadoo labadan kulan ay yihiin kulamo hore u baaqday, laakiin 2 maalmood kadib kulamada u dhexmari doono kooxaha Jose Mourinho ee Tottenham iyo kooxdiisii hore ee Manchester United ayaa dheeli doona habeenka Jimcaha. Waxaa sidoo kale habeenkan Jimcaha ciyaari doona kooxaha Norwich City iyo Southampton. Kulanka Merseyside derbiga ee Liverpool ay ku qaadan karto horyaalka waxaa la ciyaari doonaa habeenka Axadda ee 21 bisha June. Reds ayaa horyaalka qaadi doonta haddii ay ka badiso Everton, isla markaana Manchester City ay guuldaro ka soo gaarto kooxda kubadda cagta Arsenal. Arsenal ayaa mar kale dheeli doonta Sabtida 20 bisha June iyadoo marti u noqon doonta kooxda Brighton, halka Chelsea ay dheeli doonto 21 bisha June waxayna la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Aston Villa. Manchester City waxay habeenka Isniinta la ciyaari doontaa Burnley oo ay ku soo dhaweyn doonto gegada Etihad Stadium, taas oo gabagabeyn doonta kulamada soddonaad ee xilli ciyaareedka Premier League. Kulanka 31 ayaa bilaaban doona habeenka ku xiga ee Talaadada, iyadoo isbuuca 31 kulanka ugu adag uu yahay midka dhexmari doona kooxaha Chelsea iyo Manchester City. Markana suuqa kala iibsiga Manchester United oo dalab rasmi ah ka gudbisay Kalidou Koulibaly. Kooxda Premier League ka dhisan ee Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in ay dalab ka gudbisay daafaca dhexe ee Napoli Kalidou Koulibaly oo saxiixiisa ku tartamayaan qaar ka mid ah kooxaha waaweyn. Kalidou Koulibaly ayaa bartilmaameed u ah suuqa Manchester United, Liverpool iyo PSG, iyadoo ay saxaafadda Faransa dhowaan sheegtay in uu doorbidayo PSG maadaama uu Faransa ku dhashay kuna soo barbaaray. Haddaba sida uu sheegayo ilawareedka Sky Sports Italia, Manchester United ayaa dalab 70 milyan oo pound miiska u saartay kooxda kubadda cagta Napoli, iyaga oo ka doonaya 28 jirka reer Senegal. Napoliyaanka ayaa la sheegayaa in ay dalabkaasi u hayso Manchester United, balse ay ka warsugayso lacaga ka sareeya maadaama ay ayadu ku doonayso 90 milyan oo pound. Qiimaha ay Napoli haatan ku doonayso Kalidou ayaa xilli hore ahaa mid aad u jaban marka la barbar dhigo sanadkii hore oo uu ahaa 107 milyan. Warar kale ee suuqa kala iibsiga waxaa ka mid ah Jadon Sancho oo dalab uga imaaday kooxda kubadda cagta Chelsea kadib markii in muddo ah bartilmaameed uu ahaa xidigaas Manchester United iyo Liverpool. Chelsea oo la ogyahay inay kusoo guuleystay ama ay kusoo garaacday kooxda Liverpool weeraryahankii caanka ahaa ee RB Leipzig Timo Werner, markana waxay doonaysaa inay ku garaacdo kooxaha ka ciyaara Premier League. Jadon Sancho xidiga ayaa Chelsea dalabkii labaad oo 70 milyan oo gani ka gudbisay. Sancho ayaa kooxda Dortmund ku qiimeysay 100 milyan, halka ay qiimo aan la shaacinin ay hore ugu soo gudbisay kooxda kubadda cagta Manchester City oo hadda ka shalaynaysa go'aankii ay da'yarkan reer England ku fara adeegi weysay. Manchester United iyo Liverpool ayaa markii hore ahaa labada kooxood ee ugu cadcad saxiixa Sancho, kaas oo wacdaro xilli ciyaareedkan ka dhigay horyaalka Jarmalka, laakiin Chelsea ayaa safka hore soo gashay, waxayna doonaysaa in ay xidigan keento garoonka Stamford Bridge. Si kastaba ha ahaato, Chelsea ayaa tilaabooyinkan qaaday. Kooxda Liverpool iyo Manchester United ayaa walwal ku abuurtay, isla markaana ay haatan diyaar u yihiin in ay Sancho kaga hormaraan. Asxaabta meel kastoo aad joogtaan, wararkii ciyaaraha waa naga intaas. Kulanti dambe oo xiiso badan. Nabadgelyo.